aad iyo aad ayay waxay tahay maanta waxay uga dhigantay reer Hobyo maalintii gobonimada la qaatay 1960kii waa maalin taariikhi ah waa madaxweynihii ugu horeeyay ee Hobyo yimaada ee dhagax dhiga ee rajo geliya dadka Hobyo iyo inta u dhow degan waa guul weyn oo waxa dhigi kara u soo galmudug una soo ummadda Soomaaliyeed una soo nabadda una soo isaaminida madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo taariikhda qoraysa dadka reer Hobyoona mustaqbalkoodu maanta waxa uu muuqdaa mid wuxuu muuqdaa guushii laga lahaa boqolaal sano maanta laga gaaray maanta waa maalin taariikh u leh gobolka Mudug qaasatan Hobyo degmada Hobyo maanta dadweynaha reer Mudug waxay ku faraxsan yihiin in dekadina loo dhagax dhigay oo isbitaalkina loo dhagax dhigay oo dariiqina loo dhagax dhigay marka waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay lama soo koobi karo farxadayada waad u jeedin Hobyo tan iyo waagii waxa ugu dambeysay dawladii hore burburka ahayd wax dhismo ah wax laga hirgeliyo waa magaalo dib u dhacday meel la maro ma laha caruurtii iskoolaad fiican ma haystaan isbitaallo fiican ma haysano ismka qaranka aad baan ugu mahadcelinayaa iyo shaqaalihiisaba waxa weeye meesha tan maanta waxa ka dhacay wax aan la malayn karin oo aan weligeed soo marin waa dhagax dhigii Hobyo waxay ahayd magaalo la hilmaamay laakiin maanta waxa dawladda tan aad u soo xasuusatay mid gobolka iyo mid federaal intaba waxaan markaa aan ku adkaynayaa anigu hadal badan ma rabo laakiin waxaan rabaa inaan ka hadlo magaalada tan maanta waa la dhagax dhigay nimankii moojeedaa argagixisaduna waxay ka faa'iideynaysaa inay joojiso dhismaha soo socdo oo ay dekadaas hor istaagto marka waxaan ka codsanayaa dawlad goboleedka galmudug in ay ciidamada iyo dawladda federaalku in aysan nimankaasi aysan joojin intaas